tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola xiisihii uu qabay ninka u ciyaara naadiga PSG Joao Neves ayaa waxaa la soo warinayaa in dib u dhac uu ku yimid iyadoo PSG meesha ay ka saartay inaysan iibin doonin xidiga reer Portugal. kooxda kubadda cagta PSG ayaa lagu soo waramayaa inay meesha ay ka saartay iibinta xidiga diiradda u saaran kooxda kubadda cagta Manchester City ee lagu magacaabo Joao Neves inkastoo ay heshay dalab qaali ah oo laacibkan ay ku iibin kareyso. muwaadiniinta ayaa laga yaabaa inay eeganayaan inay xoojiyaan qolkooda ama qadkooda dhexe sanadka 2026 gaar ahaan iyadoo ay jirto suurtagalnimada in ciyaartooy ay ka baxaan kooxda kubadda cagta Manchester City. Bernardo Silva ayaa kale sanadkiisii ugu dambeeyay qadaraaskiisa halka Calvin Phillips ay u badan tahay inuu kooxda uu ka baxo labada daaqadood ee soo socota. sidoo kale Matthew Kovacic ayaa isaguna wuxuu yahay ciyaaryahan kale oo qadax ah kaasoo wajahaya mustaqbal aan la hubin kadib markii la xiriirinayay inuu ka tagi karo kooxda suuqa xagaaga ee la soo dhaafay. Manchester City ayaa haatan waxay xiiseynaysaa xidiga lagu magacaabo Joao Neves kaasoo qayb ka ah kooxda kubadda cagta PSG sida laga soo xigtay Fajigas. kooxda Pep Guardiola ayaa diyaar u ah inay ku qarash kareyso lacag dhan 120 milyan oo euro ilaa 105 milyan si ay Neves ay uga soo qaataan kooxda kubadda cagta PSG markaan ay keenaan garoonka Etihad Stadium. si kastaba noqotee warbixinta ayaa sheegaysa in PSG aysan aqbali soo jeedin noocaas ah isla markaana aysan miiska wadaxaajoodka ku imaan doonin wax lacag ah. kooxda kubadda cagta PSG ayaana marnaba waxa ay sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay iibiso laacibkeeda lagu magacaabo Joao Neves kaasoo runtii bandhig cajiib ah ka sameeyay 2024 ayuuna ninkan waxa uu kaga soo biiray naadiga Benfica isagoo waqti qurux badan la qaatay ciyaareedkii 2024 oo Afrika koobaba uu kula guuleystay kooxda kubadda cagta PSG. Joao Neves waxa si weyn u xiiseynaya tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola.